gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Diiriye Cabdilaahi ayaa maanta kormeer hawleed ku soo maray goobaha kaar qaadashada ee degmada Boorama waxana uu u mahad celiyay komishanka qaranka doorashooyinka oo uu ku tilmaamay inay shaqo fiican qabteen si loo yareeyo hadhowto marka dadku ay codeynayaan ayaa la baahiyay goobaha oo wax weeye la farabadiyay runtiina taa komishanku waxa uu sameeyay si hadhow saxmadu ay u yaraato marka doorashadu ay timaado ee u yaraato runtiina aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa sida fiican dadaalka fiican ay muujiyeen komishanka doorashooyinka qaranka mar kale gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay sida ay dadweynuhu kaarka codbixiyaasha ay u qaadanayaan magaalada Boorama waxa shalay noo bilaabmay gobolka Awdal ka bilaabmay wajigii labaad ee kaar bixinta codbixiyaasha runtii kormeer baan ku soo marnay dhammaan goobaha gobolka Awdal inta ugu badan runtiina si wacan bay u socotay oo dadku si wacan bay kaarka u qaadanayeen dhammaan goobaha soo marnay si nabadgelyo oo habsami leh bay u socotay shantii hore ishana waxa weeye si fiican baa loo qaatay kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Diiriye waxa uu ammaan ballaaran u jeediyay xukuumadda Soomaaliland oo uu ku tilmaamay inay diyaar u yihiin in ay qabsoonto doorashada madaxtinimada taasi oo uu ku cadeeyay in wasiirka wasaaradda maaliyaddu ay lacagtii ugu dambeysay oo dhan 1 milyan iyo 200 oo dollar ay gacanta ka saartay guddiga komishanka doorashooyinku xukuumadana lacagtii intii harsaneyd wax la socoteen in shalayto la bixiyay si wacan bay uga socotaa ilaa hadda waxana uu tilmaamay arintaasi cadeynayso in ay xukuumaddu diyaar u tahay qabsoomidda doorashada madaxtinimada ee bisha November 2017 ka qabsoomi doonta Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii ugu baaqay dadweynaha gobolka Awdal qaadashada kaarka codbixiyaashu inuu muhiim yahay aad ugu baaqaynaa inay qaataan oo ay ka faa'iideystaan muddada 14 cisho dambe ay socon doonto kaar qaybinta codbixiyaasha waxaan dadka fariinteeda ay gaari doonto ugu baaqaya mar labaad iyo mar saddexaad inay qaataan kaarka codbixinta oo ah astaanta muwaadinimo muwaadinka xaq baa lagu leeyahay inuu wax doorto lana doorto ahina markii ugu horeysay ee gudoomiye ku-xigeenku uu kormeer ku soo maro goobaha kala duwan ee qaadashada kaarka codbixintu ay ka socoto ee gobolkan Awdal balse marar hore ayuu soo kormeeray baahsi kaar qaadashada gobolkan Awdal waa xafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.